subaxnimo ay taariikhdu ay ahayd 5tii bishii Juun 1967 ayaa waxa uu baryay waa dagaal oo waaye qaraar xambaarsanaa Carabta iyo Yahuudda. Dagaalkan ayaa waxa uu la magac baxay dagaalkii 6 cisho, halka afka Cibriga ee Yahuudda lagu yiraahdo dagaalkan Milhimaad Shiishaad Hayimin. Ka hor waqacda dagaalka waxa uu ahaa mid saasaankiisii horeeto laga dareemay dunida Islaamka. Dowladaha Islaamka iyo dowladaha Carabtu waxa ay rajo buuxda ay ka qabeen in Israa'iil ay dhulka ay la simi doonaan lana kibir jibin doono dhul ballaarsiga ay wado. waxaana hoggaanka dagaalkan wadamada Carabta u hayay dalka Masar. Weerarkii ugu horreeyay waxa qaaday dalka Masar, waxaana la qaaday weerarkaasi dowladda Masar qacdii hore wadamada Suuriya, Jordan, Ciraaq iyo Lubnaan. waxaana dagaalkan si aan qarsoodi lahayn uga qayb qaadanayay dowladihii Islaamka sida Algeria, Kuwait, Liibiya, Morocco, Pakistan, Falastiin, Suudaan, Tunisia iyo Sacuudiga oo aan markaa taageero iyo taakula toos ah aan isagu ku lahayn dagaalka, taasi oo sababteedu ay ahayday khilaaf xooggan oo kala dhaxeeyay boqorkii Sacuudiga ee xilligaasi boqor Faysal bin Cabdicasiis iyo hogaamiyihii Masar Jamaal Cabdinaasir. xigmadda dagaalkaasi laga lahaa Allah ayaa ogaalkeeda leh, waxaase si fiican u fahmi kara qofkii arrimaha dagaalka ee Quraanka iyo Sunnada ku soo aroortay si fiican u fahamsan. haddaba waxaa jab iyo jac ka soo gaaray dagaalkaasi la magac baxay dagaalkii 6 cisho oo reerbaaxooyin kulkulul lagu dhuftay wadamadii Carabta ee weerarka ku qaaday Israa'iil, mana soo bixin natiijadii lagu naaloonayay in ay ka soo baxdo oo ahayday jabkii Israa'iil. taa beddelkeedu waxaa jabkii u qabsaday dowladihii muslimiinta ee iyagu duulaanka qaaday. Suuriya waxaa laga gubay 6 diyaaradood oo muhiim u ahaa dagaalka iyo dalkaba, halka Masarna laga duqeeyey xarumihii ugu waaweynaa ee fariisin diyaaradeedka ahaa ee ay diyaaradaha Israa'iil weerarka ku qaadaya ay ka soo kicitamayeen. sidoo kale Masar waxaa laga qabsaday saxaraha muhiimka ah ee Siinaay. intaas kadib Carabtii kaleeto waxaa ku dhacday kala carar iyo kabtayma aragtay. dagaalkan Israa'iil waxa ay si buuxda u qabsatay masaajidka barakaysan ee Qudus. qabsashadii Qudus waxa ay durbadiiba ay dab ay qabadsiiyeen qayb muhiim ah oo ka tirsaneed masaajidka Qudus. sida tagtada taariikhdu ay tilmaamayso, waxaa jiray hogaamiyayaal wadnaha harimacad ka lahaa oo Islaam ahaa, isla markaana si aan ka gambasho iyo geed ku dhuumasho lahayn ugu soo horjeeday falalka foosha xun ee Israa'iil ay ka wado dhulka Falastiiniyiinta. inkastoo hadalkooda iyo hanjabaadahoodu ay ku ekaayeen afka oo keliya, boqorkii waqtigaasi burjiga u hayay boqortooyadii Sacuudiga boqor Faysal bin Cabdicasiis ayaa si cad uga soo horjeestay una adkaysan waayay falalka xunxun ay Israa'iil ay ka wado Qudus iyo Falastiin, isagoo iska indhalaabay xurguftii iyo khilaafkii kala dhaxeeyay Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii dalka Masar. waxa uuna boqor Faysal albaabka ka xirtay cid kasta oo dhexdhexaadin ahayd doonaysana in ay arrinka waanwaan iyo wadahadal lagu dhammeeyo. wuxuuna boqorka Allaha u naxariistay uu watay shuruud adag oo ahayday in marka horeeto Israa'iil laga saaro dhulka Falastiiniyiinta, kadib markaas laga wada hadlo. waxaana shuruuddaasi markii horeetaba ay ku markatay Yuhuudi oo aan aqbalin. intaa kadib Allaha u naxariistay boqor Faysal waxa uu qaatay go'aan geesinimo leh oo lama filaana. hortiina aanu qaadan hogaamiye Islaami ah, dabadiidna aanu qaadan hogaamiye Islaami ah. haddaba go'aankaas ayaa waxa uu ahaa kadib markii uu boqorku u ogaaday in ay Israa'iil ay taageero buuxdo ay la garab taagnaayeen wadamadii Maraykanka iyo sidoo kale wadamo ku teedsan qaaradda Yurub oo Ingiriisku uu horkacayay. waxa uu wareegto aanay ka filanayn uu ka soo saaray in aan Maraykanka iyo xulafadiisa laga iibin karin wax shidaal ah. waxa uuna qabtay khudbado badan oo uu dadka uu ku baraarujinayay, isla markaana uu ugu sheegayay in aanay qaadan karin gumaysiga reer galbeedka ee aan ka gabashada lahayn iyo diinla dirirka cad ee ay wadaan kufaarta iyo kuwa la halmaala. haddaba go'aankaasi uu soo saaray boqor Faysal waxa uu durbadiiba uu wadnaha uu gooyey wadamadii Maraykanka iyo sidoo kaleeto Yurub ku teedsanaa ee garabka siinayay xukuumaddii Talaafiif. intaa kadib markii gebi ahaanba gaabsi iyo gabaabsi ay gashay noloshii reer galbeedka, CIA-da Maraykanku waxa ay dejiyeen qorshe lagu qaarajinayo geesigii boqor Faysal. qorshaha waxa ay ku bilaabeen in ay qoriga ay ugu dhiibaan boqorka qof ehelkiisa ka mid ah si uu u qaarajiyo boqor Faysal. waxaana gudaha Maraykanka lagu tababaray inan uu adeer u ahaa boqor Faysal oo lagu magacaabi jiray Faysal
bin musaacid, taasi oo loo soo dhiibay biskoolad si uu adeerkii uu uga soo takhalluso. 25 bishii Maaj sannaddii 1975 Faysal bin Musaacid oo ay adeegsanayeen CIA-da Maraykanku waxa uu u soo galay Boqor Faysal xarunta boqortooyada ee Riyaad. Inankan ayaana waxa uu la socday wafdi ka yimid dalka Kuwait oo boqorka marti uu ahaa. Faysal bin Musaacid ayaa waxa uu durbadiiba u dhaqaaqay dhanka boqorka isagoo iska dhigayay mid madaxa ka soo dhunkanaya boqorka, waxaana isla markiiba uu madaxa uu kaga dhuftay 2 xabadood. Boqorka waxa uuna damcay in uu goobta uu ka baxsado, gacan ku dhiigluhu se waxaa isla markiiba qabtay ilaaladii boqorka. Sidaasina ayuu ku shahiiday Boqor Faysal, allaha u naxariistee, isaga oo 68 sano jir ah. sidaas ayayna ku dhacday in danaha waddanka Maraykanka aanu ka hor imaanin boqor Sacuudi ah mar dambe. ilaa iyo waqtigan boqorada Sacuudigu waxa ay dabaldhilif ay u yihiin Maraykanka, mana jirin dabadii boqor Sacuudi ah oo qaadan kara go'aamadii geesiga Islaamka Boqor Faysal, allaha u naxariistee. halkaas ayaana sidoo kaleeto walaalaha Falastiiniyiintu ay ku waayeen garab iyo gaashaan wax u noqdo. waqtiganna waxaa Falastiin xoog ku haysta xukuumadda Tel Aviv.